نبي عليه الصلاة والسلام ديلمنتي لديلميي iyo kursiintii samada la korsiiyay bay ahayd deelminta la deelmiyay quraanka kariimka baa ka hadlaya israha oo quraanka lagu xusaba looga hadlay kursiinta samaawaadka la korsiiyana ahadiista nabiga ayaa ka hadlaysa calayhi salaatu wasalaam ilaahay marka wuxuu yiri asagoo nooga sheekaynaya نبيك ديلمنتو ديلميي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بوي سورة دابا لوغو مقعدري سورة الإسراء بالإرادة سورة الإسراء نبيك ديلمنتي اللي ديلميا لوغو مقعدر سورة دي ديلمنت اللي ديلميا ما هين إلا إسكا ديلميا waxay wadatay xikmo qaaliya bay wadatay xikmooyinka ay wadatay waxa kamid ahayd inay dheelminta iyo kursiintu ahaayeen tasliya sabarsiin nabiga la sabarsiinayo dhibaatadii gaaladu u geystay laga sabarsiinayo maqaamkiisa la ogeysiinayo darajada ilaahay agtiisa uu ku leeyahay la barayo أحد إلهي كجدوي إنه يسجرين مركي لأغنسيوي إلهي سبحانه وتعالى أمر وحو قصار نبيك إنه دعوة في ديو وأمد دين تجارسيو وأوصان إصغارين ولجهر الدعوة فاسدع بما تؤمر بالي مركز بولجهري markuu la jahraa waxa dhacay taraakumul a'daa calayhi cadawgii oo dhama ku soo kulmay korkiisa markii cadawgii tiradii ka batay oo meel uu ku dukada oo waayay oo meel asxaabtii isugu timaada rumayda oo waayay oo ahad ihaanaysanahay maahana mid kaleeto oo waayay ayuu wuxuu doonay gargaar wuxuu weydiistay qoladii heer Thaqiif nabigu waa hijrooda calayhi salaatu wasalaam heer Thaqiif xaggooda u hijrooday qoladaas buu u tagay waxa la socda saxaabigii Zayd ahaa baa la socda nabiga calayhi salaatu wasalaam oo khaadim u ahaa qoladaas wixii uu ka doonay nabigu kalama kulmin عبديال البا حكوميي هير ثقيفك marka ilaahay rasuulkiisa inay soo dhaweeyaan markii uu ka codsaday soo dhaweeya oo dacwada ilaahay igu kaalmeeya buu yiri ilaahay dacwadiisa igu kaalmeeyo wahidnimadiisa igu kaalmeeyo ila wahida buu yiri markaas bay diideen diidma kaliya uguma sinana ilmihiiyo islaamihii bay ku dalbadeen markaas ay nabiga iyo saxaabigii la socda dhagax kala daaleen ilaa nabiga dhiigii madaxiisa ka baxay cirbihiisa uu gaaro ayaa ilaahay rasuulkiisa ay tuuriyeynayeen markaas buu asaguna ilaahay iska baryahay ilaahay baryihiisa buu ku jiray ilaahu adiga ilaahay khalqay ah awaamirta adiga ii dhiibay amarkaaga fulinaya ila man takiluni ya rabbi ilaahu yaadi wakiilanaysa maanta oo gacan siinaya in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali bu ku soo khatimay hadii laakiin aadan marna ii caraysnayn waxa la wixii dib hooy soo gaara waxba u qaadan maayo buu waxa loo soo diray jibriil waxa wehliya malakul jibaal buurahan aad u jeedo iska waaweyn oo aragto dhulka tiirarka u ahi malaa'ig baa ka khidmaynaysa malagii madaxda u ahaa yaa loo soo diray markaas buu wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisa inta u yimid ana malakul jibaal buu yiri buuraha aad u jeedo malageedii baan ahay malagii ka shaqeynayo rogrogaya baan ahay maragii ciidda ku adkaynayo ilaahay u wakiisha baan ahay
waxaa amar la igu siiyey inaan kaa amar qaata adiga qolada ku dhigta qurayshta oo adigu aad ka dhalatay qoladaas wixii aad ifartay inaan ku sameeyo ayaa ilaahay isoo amra buu yidhi haddaad ifarta maanta labada buurood oo geesaha ka xigta inaan ku gembiyo waa ku gembinayaa buu markaas buu ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi arjuu an yukhrija allaahu min aslaabihi man yatawallaah waxaan rajaynayaa ha ku gedin buuraha waxaan rajaynayaa kuwa jooga dhabarradooda in ilaahay ka soo saaro kuwa ilaahay waxiida buu yidhi haddii kuwaani i diideen dhabarkooda owlaadda ku jirtaan rajaynayaa inay ilaahay waxidaan buu yidhi markaas buu wuxuu ku yidhi sadaqa man samaaka ra'uufa raxiima waa run sheegay allihii kugu magacaaba ra'uuf raxiima asagoo dhiiggu ka da'ayo isagoo la dilayo la turyaynayo isagoo dhibaatadaasi ay haysato isagoo awaamirtii fulinaya oo dhibkaa yacni ka soo marahaya malaggaasi sidaa yacni ku leeyaha markaasoo saa ummaddiisa ugu naxariisanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii uu rajaynayana waa helay waayo raggii ugu dhibka badnaa weliid baa ka mid ahaa waxaa ilaahay ka soo saara khaalid binu weliid oo aad og tihiinoo sayfullaahi almasluul nabigu u baxshay seeftii ilaahay oo gasha ka baxsaneed buu u baxshay colow hogaaminahaya lagama guulaysan weligii ilaa markii dambeeta la yidhaahdo markii aad dagaalamaysa isyeelyeel baa la yidhi yaadan isdhihin guusha adaaba watee seeftii ilaahay oo gasha ka baxsaneed weeyo cadowga lagu jabinayaa nebigu u baxsha calayhi salaatu wasalaam marka dhabarkoodii baa ilaahay ka soo saaray awlaad noocaas ah rijihii nebigu uu rijaynayana muxaqaq bay noqoto waa helay wuxuu ka soo laabtay reer haqiif wuxuu soo geli waayey makatulmukarama waayo qurayshtiibaa inta isbahaysatay ayay waxay dhaheen ma haddow noo doonto ciidan annaka uu nagula dagaalamo waaba hadduu maka ku soo laabtay dhaheen asaga iyo zayd oo keligood ah ayaa meel dhexe iska jooga magaaladiina waa geli waayey qoladii ugu tagana gargaar waa ka waayey waxaa magaalada inuu soo geliyo ku dhaartay ninkii la dhihi jira mudcim binu caddi baa wiilashiisii iyo asagaa waxay garaarsadeen seefahoodii iyo warmahoodii iyo gaashaamadoodii markaasoo wuxuu iclaamiyo ka iclaamiyey kacbada dhexdeeda muxamedaa soo dhowaynayaa buu yidhi markuu dhaqaaqay oy la yaaban yihiin qurayshtii nin aan lagu dhicinoo odayana uu yahay ayay dhaheen ma raacdo ma rumayday base waa korinaysaah waa badbaadinaysaa markaasuu yidhi waa badbaadinayaah ma raacino markaasay dhaheen idan lan nukhfiru dimmataka bay dhaheen haddaad badbaadinayso ma burinayno adiga dimadaada ballankaaga iyo cahdigaaga iyo kormadaada qofku imaanaya ma burinayno bay dhaheen ma burinayno adiga ballankaaga burin mayna bay dheh cahdigaaga waa dhowraynaa markaasuu soo dhoweeye nebiga iyo zayd uu soo dhoweeyey magaaladuu soo dawaafsiiye soo marsiiye markaasuu kacbadii keenay axad hadda u soo dhowaada ma uusan jirinin waa ninkii ilaahay rasuulkiisii uu yidhi markii beder gaalada laga adkaaday 70 la laayey 70 la soo qabtay ayaa markii 70kii la soo qabtay halkan taagan yihiin ayaa wuxuu yidhi haddii maanta mudcim binu caddi noolaan lahaa oo uu 70kan aniga madaxayga ku sii day dhihi lahaa waa sii day lahaa buu yidhi waa murugtii maalinta uu ka fayday nebiga calayhi salaatu wasalaam murugtii uu ka fayday daraaddeed yow maalintaa islaamku guulaystay oo sanad walba ay loo dabaaldegayo 17 ramadaan gaaladii waaweyneed oo la qabto 70ka ahayd waxaan ku marti qaadi lahay buu yidhi inaan siiyo mudcam binu caddi hadduu maanta noolaan lahaa buu yidhi laakiin ma noolayna gaalnimuuna ku dhintay markii uu ka soo noqda dhibkaasoo uu maka soo galay dhibaatadii uu ku dhacdaa laga sabar siinayey markaasaa israhaana la cirbiyey
asagoo kacbada jiifa ayaa la kiciyey halkaasaa laga waday waxaa loo keenay daabad faraskana ka yar dameerkana ka roon magaceedana buraaq la yidhaahdo midabkeedana ilaahay unbaa garan kara quruxdeeda min dawaabi aljanna waa daabad laga keena jannada markaas yaa halkaa isagoo kacbadii jooga masjidka xaramkaa laga waday daabaddan soo kor baa la yidhi wasaqdii dhexa ah daabaddii buu koray waxaa hogaaminahaya jibriil waa ra'iisulmalaa'ika fi samaa samada ilaahay malaa'igtuu dejiye madaxoodii iyo waxaa safarka ku saaxiiba ardada banu aadamkii la dejiye madaxoodii labadoodii baa isla saaxiiboo safarkii ku saaxiibay halkaas baa laga wada nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa waxaa hufan oo nuqsaan oo dhan ka hufan allihii dheelmiye addoonkiisa asraa bicabdih waxaa israhaasi ku tusinayaa nebiga wadidda la waday inaysan maalin ahayn ee ay habeen ahayd waayo israha waxaa la yidhaha sayr fi leyl weeye waa habeenkii socodka la socdaa la yidhaahdaa marka wuxuu ku tusinayaa isruhu inuu habeen dhacay ayuu ku tusinayaa haddana waxaa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi asraa bicabdihi buu yidhi lam yaqul birasuulihi walaa binebiyih ma dhihin rasuulkiisii allihii dheelmiye ma dhihin ma dhihin nebigiisii allihii dheelmiye ma dhihin leesh bicabdihi lafdigaasi madaawaad badan buu yahay xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay inaanaan ku fidnoobin sidii nasaara ugu fidnowday nebi ciise oo ay dhaheen ciisa ibnullah ciise waa inankii ilaahay wiilkii ilaahay weeyay dhaheen ciise waa wiilkii ilaahayay dhaheen annaka waxaa nala ku tusay inuusan wiilkii ilaahay ahna addoonkii ilaahay uu yahay asraa bicabdihi baa la yidhi ilaahay asagaa isu idaafeeyey waa ku sharifay waa ku qiimeeyey waa ku qadariyey asraa bicabdihi buu yidhi maqaamaadka sharaftale oo dhan markii nebiga lagu xusayo qur'aanka kariimka dhexdiisa cabdi baa laga cabbiraa nebiga calayhi salaatu wasalaam addoonkii ilaahay baa leh midda kaleeto haddii qofka addoonnimadiisa loo xaqiijiyo oo ilaahay sidaasoo kaleeto uu isugu idaafeeyo ruuxaasi waa badbaado baa la yidhaahdaa caro ilaahay waa ka badbaaday ilaahay sharaftii uu siiye buu huwan yahay waa aniga addoonkaygii marna aana caasinaynin wey marna cisyaan kama dhicin marka nebiga calayhi salaatu wasalaam cubuudiyadii baa u sugnaatay ilaahay uu caabudayey oo addoon baraxla uu yahay ayaa halkaa ka caddaatay marka waa maqaam sharaf leh maqaamulxamdi ah oo ilaahay nicmadiisii nicmo ka mida la dareensiinaya nebiga oo mucjizatulkubraa ah ilaahay marka wuxuu yidhi waxaa nastahanoo xumiyoo dhan ka nastahan lafdu tasbiixa suuradda lagu bilaaba waxaa lagu bilaaba bay dhahaan mufasiriintu innamaa yu'ta tasbiixu cinda umuuri alcidaam lafdiga tasbiixda waxaa lala yimaada umuurta waaweyn agteedaa lala yimaadaa waxaad la yaabta markaad aragto waxaad leedahay subxaana allah ayaad leedahay yacni waa tacajub marka waxaa ku dhaahan noocna la dareensiinayo isruhu inuu ahaa wax weyn marka ilaahay subxaanahu wa tacaala lafdu tasbiix buu ku bilaaba suuraddii subxaana aladii asraa bicabdihi buu yidhi leylan waxaa nastahan allihii addoonkiisa dheelmiye habeenkao dhan weliba maahaynoo tanwiintaa waxay ku tusinaysaa inuu ahaa laxadaad oo min laxadaati leyl ah habeenka milicsiyaal ka mid ah ayay aheeda habeenkao dhan maahayn gooshii uu ka tegayoo kululoo sidii u kulul oo awda nebigu calayhi salaatu wasalaam xaggee laga waday meesha laga wada xaggee bay ahayd ilaah baa sheegoo wuxuu yidhi min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah
waxaan ka wadna masjidul xaramka xagee baa loo waday waxaa loo wada masjidul aqsa masjidkii fogay waa ka fog yahay markii maka la yidhaahdo ila almasjid alaqsa labada masjidba nebi aadamaa dhisay oo ka dhisay kacbadana meesha ka dhisay baytulmaqdisna dhisay dhismahoodana mararka gobol waxaa la yidhaha 40 sano u dhaxaysay marka waxaan ka wadno baa ilaahay yidhi masjid waxaana geyna masjid waxay ku tusinaysaa tarbiyada wanaagsan inaysan ku taam noqon ilaa masaajidda maahan meel kale aayaddaasa laga dareemayaa lama dhihin waxaan ka wadna jaamacad aasan jaamacad geyne waxaan ka wadna iskuul aasan iskuul kala geyne waxaa ilaahay yidhi waxaan ka wadna masjid markaasaan masjid kala geyne waa buyuutullah ilaahay buyuuddiisii ardada weeye biqaacu lardi meesha ugu sharafta badan ardada waa masaajidda meesha ugu dhibaatada badan oo ugu xunna waa suuqa meelaha aswaaqda wax lagu kala gata weeye meelaha aswaaqda oo la isugu faano oo aad aragtay dadka faanlowga isugu imaanaya moogta kuwa waxaad arkaysaa maasha allahu kaana furayaalka ku faanayo 10 furo isku soo xira aad arkay xatan oo iska laalaadinaya shagaxdaas soo maaha furayaalku kuwa ku fidnooba qaaruun soo ilaahay ma dhihin inna qaaruuna kaana min qawmi muusa فبغى عليه وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلهي وحسين مال فريال كيسة توبان رق ووين وقلدي مركا ترتيئة أي سقادي كرون أي عصلين يا مركا وماشا إلا يسكولا وينادو قفك إسلو وينانيو ماشا قفك يعني وحا كبحي قلب كيسة هو حقليس الدنيا أقليسة markaad masaajidka soo gashaan waxa ku galaysa qalbiga aakhira xusuusanaysa ilaahay baa ku xusuusanaysa masjidka albaabka markaad ka soo galaysa ilaahay digrigiisa ku soo galaysa inta aad fadhida ilaahay digrigiisa qabanaysa qof dukanaya ilaahay xusaya qof quraan akhrinaya qof rukuucsan qof sujuudsan kaliyaad arkaysa marka waxa lagu xusuustaa masaajidda ilaahay baa lagu xusuustaa markaas ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ka wadnay masjid markaasaan masjid kala geeyna nabiga calayhi salaatu wasalaam labadii masjid oo marka ugu fadli badneed ardada weey waa masjidul haram iyo masjidul aqsa nabiga masjidkiisa marka lama aasaasin oo ilaahay rasuulkiisa soo ma hijroon oo madiinatul munawwara muusan imaanin waxaan geeyna nabiga masjidul aqsa alladhi barakna hawlahu masjidkii masjidul aqsa oo aan geesihiisa barwaaqaynay maxaa ilaahay ku barakeeyay waxaa lagu barakeeyay thimaarta waxaa lagu barakeeyay anhaarta wabiyaal iyo thimaar miro aa ilaahay ku barakeeyay waa meesha ambiyada dhan laga soo sida miro uga soo dhala jirtay oo laga soo saari jiray ambiyada heer bani israa'iil oo dhan meesha laga soo saarayo weeye waa manbacul anbiya waa meesha nabigana lagu kulmiyo ambiyadii markuu maka ka tagay madiina markii la geeyay baytul maqdis meesha sharaftiisa lagu muujiyay ilaahay rasuulkiisa waxay ahayd baytul maqdis meesha hadda israa'iil lagu dagaalamayso islaamku la dagaalamayso halkaas ayaa sharafta rasuulka kor Allah ugu tusiyay markii uu daabadii geeyay masaajidka agtiisa ayaa jibriil wuxuu ku tafay dhagax yar oo xalqooyin la galgaloolan oo ambiyadu ku tafa jirtay ayuu saa dhagax ugu taftay markaas ay masaajidka galeen waaba la buuxaa masjidka markaasuu 2 ragcad dukaday markuu dukaday ayaa jibriil wuxuu ku yiri safkii baa la safay oo hal la safa buu yiri markii la safay ayuu wuxuu yiri adaa imaamkoodii adiga ah buu markaas ilaahay rasuulkiisu salaadii baxshay markuu salaadii ka baxay oo salaadii la dhameystiray ayuu wuxuu yiri yaa muhammad atadri man salla khalfak محمد وما قرنيسا ما أنت الدول كقدال كأجكدو كذا ما تقانا بير مركز بير مايا مركز بير الصلاة خلفك كل نبي بعثه الله تعالى وحقدال كأجكدو كذا عاوة إلهي النبي أهرؤس وصاري وطلع يا قدال كأجكدو كذا بير عاوة وحدك بعد النبي والله صار متران موقته وحلا وحي الرسول كهري وحلا وحي النبي كهري habeenka baytul maqdis la isugu keenay markaas ayakana waxa la dareensiiyay inuu nabigu madaxu yahay illa qofkii madaxa ayaa salaadii bixinayay
qofka suldaanka marka loo yimaado beydkiisa iyo qofka saaxiibul beydka asaga imaam ka noqda ama qof u fasaxa ka noqonaya marka la isu keeno kulligood inuu meeshan asagu uga owleysan yahay imaamu yahay lagu dareensiiyey sharaftiisii baa meesha lagu tusiyey meeshaasoo ambiyadii ugu duceeyey meeshaasoo rusushii isku barteen laga soo bilaabo nebi aadam ilaa asaga laga keeno ilaahay intuu soo saaro rasuul ahayd intii nebi ahayd oo dhan ayaa baytulmaqdis lagu soo kulmiyey ahlu sharafkii adduunyadoo dhan waaye dadkii ahlu sharafka ahaayoo adduunka ilaahay soo saaroo dhan ayaa baytulmaqdis la isugu keenay bisha la isugu keena waa bishee waa bishaan hadda aan ku jirno waa bishaan hadda aan ku jirno rajab goormay ahayd cadadkeedu 720 marka uu yahay sida mashhuurka ah oo culimada yacni dhexdooda mashhuurka ku ah 720 habeenka ah habeenkaasoo laylatul isra wal mi'raaj dhacay habeenkaasi waxa weeye leyla soo martay ilaahay rasuulkiisa leylada ugu khayrka badan weey waayo wuxuu la kulmay rabbigiisa ilaahay isbu la kulmay ilaahay isbu la kalaamay waxaana la ku soo farad yeelay habeenka salaada aan dukanayna la ku soo farad yeelay martiqaadkii habeenka ilaahay bixiyay bay kamid ahayd martiqaadkii nabiga lagu martiqaada bay kamid ahayd salaadaha shanta aan dukayno oo ilaahay markii hore konton uu ka dhigay markii dambana ilaahay noogu naxariistay inay 5 salaadood noo noqdaan oo la yiraa khamsun bixasbi alficli wa 50 bixasbi thawaab xagga ficilka waa 5 salaadood laakiin xagga thawaabka waa 50 salaadood baa leeyahay qofkii 5 salaadood xifdiyo dhowra 50kii salaadood asagoo xifdiyo kale tabay la mid habeenka martiqaadyadii la bixiyay bay kamid ahayd marka ka bacdi baa nabiga laga waday markaas af 7 sama la dhaafsiiyay fawqa 7 samaawaat baa la gaarsiiyay ilaahay buu subhanahu wa ta'ala la munaajoday tajalliyaad ilaahiya ayuu helay meeshaasoo kala kulmay wuxuu qof bani aadam la kulmin bishaani marka waa bil aad u baraka badan waa bisha ilaahay rasuulkiisu uu tilmaamay inay tahay bishii ilaahay ayadoo bil kasta bilihi ilaahay ay yihiin ayuu yiri rajabu shahrullah waa wax dhexdeeda dhacayo fadaa'il ah waxa ilaahay martiqaadyo u bixiyo dhexdeeda oo martiqaadka ugu weyn midka nabigeena la siiyay uu yaa calayhi salaatu wasalaam